أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاء السيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كانوا وحوك بلابنيا آيات اللحية طبنات وصورة يوسف كمذا وحانو سوقارني عشر كاني سدح بقل يسديدات أنه كده جرنا صورة اللبية طبنات وقرآن كمذا. قصدي عجيب كهيدو إلهي وكت المامي أحسن القصص أيان كسو دحجرني نبي الله يوسف ولاليه اسمركي أبيه سيكوذين وأرنت أي تمنين أيان أي كساميين وعيلك أي كردين أيا إلهي نوصو sheego ilaahay waxauna soo dhahay subhanahu wa ta'ala markii ay la tageen oo ay arintoodii inay fuliyaan ay u qasdeen ceelkii jiridiisa ayay ku tooreen oo halkaas ay maaratay ku rideen marka arintaas markay dhacday oo nabiyullaahi yuusuf ceelkii lagu riday Allah wuxuu dhahay waxaan u waxyoona yuusuf asagoo ceelkii jiridiisa ku jira وحي أو حقيقة إيه وحي إلهام إيه وحي البوالة الشيغة لكن وحي حقيقة وبضنتها وادو الرمى يساهو ده إلهي سبحانه وتعالى ما أنت كبعدي لمنك وحان كبسمي أمر كوضا أياد أو الرمى دونتها ayagoo markaasi aanan garanaynin wixii ay sameeyeen iyo inaad adigu ninkii ceelkii waagaas ay ku rideen aad tahay ayagoon waxba ka ogeyn taasina way noo imaan doontaa markay arintaas sameeyeen way ka soo laabteen aabahoor ayay markaasay arintii ula soo laabteen ayagoo arin beena u sheegaya oo arintaas inay ku qariyaan ay doonayaan halkaasna nabi yuusuf inay uga takhaluseen ee la tahay ayaga ilaahay wuxuu subhanahu wa ta'ala wajaa'u way yimaadeen abaahum aabahood ayay yimaadeen cishaan galab ayay u yimaadeen yabkuuna xaalihin kuwa ooyaaya qaaluu waxayna yiraahdeen yaa abaana aabahaynow inna anagu dhahabna waanu tagnay nastabiqu anagoo gananayna wa taragnaa waanu ka tagnay yuusufne cinda mataacina alaabtayna agteeda ayaan uga tagnay faakalahu dibeedna waxaa cunay adhibu dhibiga ayaa cunay wamaa anta adiguna matihid bimu'minin lana mid noo rumaynaaya walow kunna anba ahaana saadiqiina kuwa run sheegay hadalkaas ayay ula yimaadeen yacquub warkaasay u keeneen ilaahay wuxuu subhanahu wa ta'ala wajaa'u way yimaadeen ikhwatu yuusuf abaahum aabahood ayay u yimaadeen ilaa waxa weeye wiilkii uu ka sugayaahe cishaan ayay u yimaadeen galab ayadoo qoraxdu sii gaaban tahay oo markaasi qoraxdu ay markaas sii dhacayso waxay galabta u doorteen ayaa la yiri waxay rabeen maadaama waqti qoraxdu sii dhacayso ay too mugdi u soo galayo in cudurdaarkooda uu ka aqbalo gurigii yacquub markay soo gaareen ayay waxay dhaheen culimada siirada waxay bilaabeen ooyin ayay bilaabeen markay guriga u soo dhow yihiin inay qaylinayaan markaasuu sawdkoodii nabi yacquub oo maqlay aad iyo aad ayuu uga argagaxay markaasuu ka su'aalo war maxaa idin ku dhacay ayuu dhahay sidaanay markaa ugu jawaabayaan markaasuu dhahay ilaahay wajaa'u way yimaadeen abaahum aabahood yacquub ayay u yimaadeen cishaan ayay u yimaadeen galab وقت المساء يبكون حالهم كأويا أويا وأوين بين واي أوين تان هذا مسح معهن رسول كان عليه الصلاة والسلام أيها وحوده المنافق يبكي بعين ويضحك بعين منافق وحوي إلوا كأويا إلنا وكقسلا ضد وحاجر مركا ما ضبع ضد كغاركيس أي سميكران مركي دونان أي إسؤين سيان مركي ربان وقسلان مدك لو حاجر ضد كححن وحيابها أي مركا say sameeyaan hadda dadkan xumaan iyo ku tilmaami mayno oo xaalkooda ilaahay baa og laakiin hadaa bani aadamkan kala aynu soo kacno dad waxa jira ayagu dambi galay oo dambiilayaal ah markii la arko markaasi dambigaas ayagoo iska bari yeelay ooyaaya ooyintuna ay u sahlan tahay dadkaas waxa lagu tiri karaa hal inay munaafiqiin yihiin oo xadiiskaas markaasina uu sheegay kaleey salaam inuu dabaqaayo oo dad waxa jira markaasi ooyinta ku qaraabto
maartaya hadee la arka markaas ayagoo dambiga hadda ka soo jeeda markii dambiga uu ku cad yahay ooyaya oo dadka markaas ay u maleynayaan dadkan inay bari ka yihiin waxaanu laakiin saas maahan ooyinta dadka is ooyinsiya wax ictibaar ma la taas qofku hadoosan dar ilaahay uusan u ooyeynin oo dadkii ilaahay daraadiisa u ooyay uusan ahaynin ooyinta kaleentood cid walba ooyinay sameey kartaa waliba dadka noocaas oo dambiga galaahu ooyin ayay sameeyeen way ooyin badan yihiin markii ay maartay yimaadeen ayagoo ooyaya qaaluu waxay yiraahdeen markii su'aashaas uu weydiiyay yaa abaana aabahayno inna anagu dhahabna waanu tagnay nastabiqu xaal anay kuwa dhaqtamaaya amba kuwa tartamaaya nastabiqu bimaana narmiina waa lagu magacaaba oo waxay isla geli karaysaa tartan ayagoo sameeyahay markii horeba u sheegeen oo la ordaayo iyo ayagoo markaasi falaarihi gamuunaha ay wateen ayagoo genaayo sheeshtamaaya intaasba markaasi way isku keenaysaa oo sabqigaanu intaas uu keeni karaya wa taragna waanu ka tagnay yiraahdeen yuusufna cinda mataacina alaabtayna agteeda ayaan uga tagnayo markaan ordaynay oo markaasi cayaaraynay amaanu shiishka sameeyno gamuunta genanaynay ayaan alaabtayna dharki koro iyo ina meel dhiganay oo isu geysanay ayaan dhahnay alaabta noo ilaaliyo halka noo joog waxyaabaha beenta ay dhisayaan bal u fiirso marka haddana dadkaas waxa weeye badana beenay dhisaan oo markaasi run ay kaaga dhigayaan faakalahu dabeedna waxa cunay yiraahdeen dhi'ba ayaa cunay baashi maaratay dhi'bigi oo markaasi uubatadi amba uuleeydi ama baashi yeygahay ayaa cunay wama anta aduguna ma tihiday yiraahdeen bimu'min lana mid noo rumaynaya waana la xaalay kara wal xaal ma anta aduguna aadan ahayn aabaheenow bimu'min lana mid noo rumaynaya walow kunna amba ahaan saadiqiina kuwa ku run sheegay hadalkaas maxay markaasi waxa weeye tuhmaad naga qabtaa walow kunna amba ahaan yiraahdeen saadiqiina kuwa run sheegay oo agtaada runba aan ku sheegnay marka hadda waxa weeye way tuhmaysanayaan maxaa yeelay waxay og yihiin maxabada oo markaasi Yacquub oo u qaba wiilkaas marka waxay leeyihiin anaga tuhmaad naga qabtaa maxaa yeelay waxa weeye wiilkaas aad iyo aad ayaad u jeclaaday markii hore oo nugu dareysana waa tuhmaad naga qabtay sidaas daraadeed ayaadan noogu rumaynayn hadda hadalkan kooda oo yiraahdeen wama anta bimu'min lana walow kunna saadiqiina ta hadalkaas tuhmo keenaya inay markaasi beenaalayaal ay yihiin sababtoo ah waxa ay ku tuhmo ku keenaysaa wax aan loo dirsanin asaga hadda markaasi markay u jawaabeen oo markii maxaa idin ku dhacay uu yahay hadalkii markay u jawaabeen intaas ku filnaadayo haday lacala dhiiraan faakalahu dhi'bu iyo warkii warbixinta ay ka soo bixiyeen intaas kaafi ahayd marka ayaga shaki ay iska qabaan ayaga shaki ma ahe waxay og yihiin maaratay khiyaanada ay sameeyeen iyo dambiga ay galeen ay og yihiin markaas waxay leeyihiin maya ma noo rumaynaysid ayagiba hadee is ogo waxa weeye haday dad ishuba ay yihiin ma dhihi lahaynay dhaheen culimadu wama anta bimu'min lana walow kunna saadiqiin sababtoo ah waxa weeye waxay og yihiin inay markaasi xumaantu ay sameeyeen iyo waxay agtiisa ka yihiin iyo beenti ay sheegeen ay og yihiin markaas waxay leeyihiin kullayba noo rumaymaysi saasay u leeyihiin ayaga markaas xaalada isku asaguna tuhmo badan ayuu ka qabay hadalka markay yiraahdeen oo sidaas markaasi warbixiyeen hadda waxa weeye dhibaato dhan iyo murug iyo dhibaato ayaa nabi Yacquub u timiday waxay haddana keeneen markaasi been abuur kaleentoodo ilaahay wuxuu yiri wajaa'u way yimaadeen oo dhahay ilaahay subhanahu wa ta'ala وجاءوا ويليمادين على قميصه وجاءوا ويمادين على قميصه markaas waxa weeye على قميصه idan waxa weeye dharfiye ayaa markaas lagu nasbinaya oo markaas waxay noqonaysaa fawqahu ay noqonaysaa وجاءوا ويمادين oo ilaahay على قميصه qamiiskiisa korkiisa xaal uu yahay bidam dhiig uu yahay macnaha waxa waaye been abuurka ay sameeyeen qamiiska ay ka bixiyeen markay ceelka ku ridaayeen oo garaacayeen ayay maaratay neef yaro iriya ina bireeyeen ay dhiigiisi marmariyeen ayagoo markaasi ku wahmi gelinaya oo isdhahaaya hadda waa kan oo maaratay bahalkiya cunay qamiiskiisi waa kan bahalkaana cunahays yiraahdo saas ayagoo dhahaaya markaasuu dhahay ilaahay subhanahu wa ta'ala wajaa'u waymaadeen oo ilaahay ala qamiiskiisi korkiisa xaal uu yahay bidam dhiig uu yahay fawqa qamiisi way qamiiskiisi korkiisa wajaa'u waymaadeen ala waxa kala dhigi kartaa wajaa'u waymaadeen ala
على قميصي ما دام تنو أي ظرفية أي تاي وجاءوا ويمادين على قميصي قميص كيس كور كيس وحي كل يمادين بدم دي كذب أو بينه قميص كيس كور كيس أي دي كوكانان وجاءوا ويمادين أو إلهي على قميصه أي فوق قميصي قميص كيس كور كيس وحي كوكانان بدم دي جاي كوكانان كذب أو بينه ذي كذب وي بأن ذبحوه صخلة وهي جورعين مركاسي وحريري جورعين مركاسي دي جيدي مرمريين أصيا شيء وحي هالمامين إني قميص كجيحان إلا إن باهلكم مركو عنايو باهلا عنا إليهين باهلكم مركو قبصدو قميسكو جيحايا قميسكنا ما جيحنا مركاسي وحير هذين إنه دمه ديجيس وايدهن ديجان هذا قميس كويا لوا ديجيس والناف يراو حره مركا أريجو كجرتو يجورعين واي بنتاسي مركاسي أي دروب عيان مركاسو ده إلهي سبحانه وتعالى وجاءوا ويمادين أو ده إلهي على قميصه أي فوق قميصه قميص كيس كور كيس وهي كل يمادين بدم من ديجو ده إلهي سبحانه وتعالى دم كاسو كذب أو بينه ديج بين أبو روي مركي أرنتها سدعدي أو يراهدين ديجانو ديجيس واي قال وحوضه النبي يعقوب مركو وليب اوغادا ليري ويلكيس انو عاف او فياويه بينتودنا او اوغاداي maxay la waxa la wariyay waxa uu dhahayaa leeydi asagoo ku jeesjeesaya ma ahlama hada diibo dhahay yaakulu ibni wala yaqud qamisa war waxa uu dhahay maaratay diibigaanu dulqaad badana hoo dhahay wiilkaygiyo cunaya qamiiskiisana jeexi maayo miya see waay culumada qaar waxay yiraahdeen diibigi laftirkiisa ay soo qabteena leeydi diibiye soo qabteen baal asayade kii cunayba ma ahane diabti meeshaas joogta mid kamid ayay soo qabteena leeydi markaas ay yiraahdeen midkan ayaa cunay wiilka markaas uu Yacquub waxa uu dhahay ayuha diibu anta akalta waladi wa samarata fuadi arudi bi habow adiga miyaa cuntay wiilkaygi laabtayda miraheeda adiga miyaa cuntay markaas ilaahay ka dhawaajiyay diibigi markaas uu dhahay wallahi ma akaltu waladak ilaahan ku dhaartay wiilkaaga anigu ma cunin wala ra'aytu qad wiligayna ma arag uu dhahay aniga wiilkaaga ma arag wala yahillu lana an akula luhum al-anbiya'i anbiyada hilibkeeda inaan cunana annaga hadaan diabnahay ma noo banaanaba markaas uu Yacquub waxa ku dhahay arladatan arlu kancaan oo dhulkayna maxaa ku keenay markaas uu diibiga waxa uu dhahay jiitu lisalati rahim waxaanu imiday qaraabo inaan xariisho oo diab kale oo qaraabadayda inaan soo xariisho ayaan dhul kale uga imiday nimankaana isoo qabtay waa ii ka keeneen markaas uu Yacquub iska sii daayay leeyahay amur ilaahi subhanahu wa ta'ala wata ayaa meesha ka socota oo waxa weeye wax ilaahay wata waxyaabaha waxa dhacaya oo soo jiray qof hadii ilaahay maqaam gaarsiinayo waxa lagu maqaam gaarsiya sida qaalibka waxyaabo sucuubada سورة البقرة واتان كسومر جرني وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما واتوضها كبعد إلهي مرك الله جرهي كبعدي أيا إلهي وحوضها ضدكاس أيان كاغا دقايا إمام كاغا دقايا مرك هذا أمور إلهي وطوه oo markaasi wasiilooyin loo maraayo ayaa meesha ku jirta khar rasuulkeena Alayhi Salaatu Wasalaam markii oo Maka uu joogay 13 sano dacwadii oo dadkii u sheegayay ee waxba laga qaada waayay oo lagu dhibayay markii dambe inuu hijroodo oo markaasi Madiina uu aado oo aad iyo aad maaratay uga fog Mako oo markaasi 500 kiiloomitir oo dhul qafra ah inuu maro ayaa markaas lagu kalifay oo dhibaatana markaas oo markaas daahirka uu arkay laakiin baadinka ayaa wax badan oo asraar ku jiraan marka asraar ilaahi ayaa jirta oo qofa laga yaabaa waxyaabo badan in lagu jarribayo naftiisuna ay kaanayso isla markaasina meesha uu gudbi lahay maqaamaadka iyo darajada inay tahay qaala nabi Yacquub waxa uu dhahay ilaahay subhanahu wa ta'ala bal iska daayi wiilkaygi dibi macunine sawalad lakum waxay idin siinaysay anfusukum naftiinu amran amr naftiina waxay idin siinaysay oo aad fasheen fasabrun fa amri usoo qadaro mutadaa aniga amarkaygu sabrun sabar weeye sabarkaas oo jamiil oo wanaagsan ayuu ugu inkiray naftiina waxay idin sahashow leeyahay amar cadiim ah waa nafasheen oo Yuusufaad ku sameeyeen marka arintaasna waxaan ka kasaaya haw dhahay indhihiina uga jeeda haw dhahay maxaa yeelay qof been sheegay iyo dhaalima iyo qof markaasi caadi maba isu akaba maxaa yeelay hadallada iyo iska hor imaadkooda iyo waxyaabo badan markii laga koontarool ayaa la ogaanaya asagana dawaa og yahayo hadee arinta horu jirtay oo markii horeba waa tuu wiilkiisa oo waaniyeeyo
cidhuu sheegin oo dhahay maaragtay waxa walaalaha markaas ayaa ogaanay markaasay dhagar kugu sameynayaan oo waa tow markii uu maslaxayo ru'yadii oo u sheegay suurada bilowgeeda waa tan soo marina waxba ku sii laalaabmayne waa tow dhahay ya bunay la taqsus ru'yaka ala ikhwati wiilkaygiyo ru'yadaada u sheegin walaalaha fayakiidu laka kaydan hada arinta uu sheegay nabiyullaahi yacquub ayaa timiday inna shaydaana lil insani aduun mubin hawshaasna waxa way waxa maamulay makrigaas iyo dhagartaas iyo balaayadaas shaydaanka waaye maxaa yeelay wax kasta oo dulmiya ama dhibaato ah waxa ka shaqeeyay shaydaanka weeye insigana markaas waxa ku tarbiyeenay oo baraaya waa shaydaanka marka arintaas markay dhacday waxa uu dhahay nabiyullaahi yacquub fa sabrun jamiil ayuu dhahay fa amri aniga amarkaygu sabr sida hadda ambiyada ilaahay loo imtixaanay bal u fiirso rasuulkeenu wuxuu alayhi salaatu wasalaam ashaddukum balaa'an al-anbiyaa'u thumma al-awliyaa'u thumma al-amsal fal-amsal waxa idinku balaayo badan oo idinku dhibaato badan ambiyada kabacdi dadka awliyada dad qof walba qofku ka garaada weyn yahay ayaa ilaahay imtixaanaya subhanahu wa ta'ala marka imtixaanka iyo jaribaadu ambiyada ilaahay iyo dadka saalixiinta baabkoodaba waay waxyaabo badan oo ilaahay adduunyada tan uu ka og yahay ayaana loo yeelaya marka waxa uu dhahay aniga arintaydu sabar jamiila waay wallahu allane almusta'aan waa midka laga kaalmo dalbo ilaahay ayaana kaalmo laga dalba ala ma tasifuna waxa sifaynaysiin u dhahay wallahu allane almusta'aan waa allah laga kaalmo dalbo ala ma tasifuna waxa sifaynaysiin waxyaabaha markaasi ala tahammulil makaarihi allati tadhkuruna fi amri yusuf waa way makaarihda markaasi oo loo dul qaato oo aad markaasi hadana waxyaabaha aad ka sheegaysiin nabiyullaahi yusuf aad ka sheegaysiin waxaas inaan u dul qaato ayaa aniga iga go'anow dhah waa sabrun la jazaa fihi sabr aan argagax lahayn fa sabrun jamiil waa sabr markuu sabr jamiil yahay waa mid markaasi waxa way argagaxaan lahayn oo ilaahi subhanahu wa ta'ala lagu kalsoonaado iyo qadarka iyo qadaha alle wallahu allana almusta'aan waa mid kala kaalmo dalbo dhahay calaamaad tasifuna waxa sifaysiin calaamaad tadkuruna min amri yusuf way waxaad xusaysaan oo amarka nabiyullaahi yusuf ah hadda markaas nabi yusuf waxa ku dhex jiray ceelkii oo ku dhex jira ceelkii oo ku dhex jiray nimankaanu sidaasay aabahood u yimaadeen beentaas u sheegeen hadalladaas ayaa la isdhaafsaday marka arintii ceelkii iyo arintii nabi yusuf wixii ka dhacay ayaa ilaahay dana noo sheegaya Allah wuxuu dhahay subhanahu wa ta'ala wajaa'ad waxa timiday sayaaratun socota ayaa timiday dad musaafiriina oo magaalada Madyan ka imaanaya Madyan waa magaaladii nabiyullaahi Shuayb oo soo mari jirnay oo halkaas dhulkaas Falastiin weeye way soo aadayeen Masar ay soo aadi jireen dadku oo markaasi shaharsi ay u soo aadi jireen inay markaasi wax ka ganacsadaan oo dhulkaanu dhul laysaga gudbi jiray ilaa maartay asmaanti hore waay wajaa'ad waxa timidow dhahay ilaahay subhanahu wa ta'ala sayaaratun socota ayaa timiday dad macnaha waxa laga wadaa musaafiriin ah oo dhankaas Masar u soo safraaya markaasay waxay degeen ceelki meel u dhow oo Yusuf oo ku jiray Yusufna ceelkii ku dhex jira faarsalu waxay direen oo dhahay ilaahay waaridahum koodi aroorayay alladii yaridul maa way midka biyaha u soo arooraya si waxa weeye uga waraabaan faarsalu waxay soo direen oo dhahay qoladii meesha soo degtay waaridahum koodi arooraya ay soo direen faadlaa waa ridow dhahay kaasu dal wadaantiisa ayuu riday wadaano watay ayuu markaas oo ceelku u riday faadlaa waa ridow dhahay Allah subhanahu wa ta'ala waaridki dal wadaantiisa ayuu riday markuu wadaanti riday oo wadaanta sideedaba xariga ku xirane wadaanti xariga ku xiray nabi yusuf ay u tagto ceelku ku jira markaasuu ku dhigay wadaanti xaw ku dhigay xarigi ninkii marka waxa waay nin xoog loo ahaaye wadaanti inay biyo ugu jiraan oo u qaba markaas wadaantii markaas oo soo shubo ceelka soo bixinaya faadlaa waa ridow ilaahay dalwa wadaantiisa ayuu riday markaas yusuf ku soo tacalluqay markii ceelki afkiisa oo keenay nin qurux badan oo adduunka wax qurux ku dhan la arag oo dhalin yara ayaaba ku dhagan wadaanti qaala markaas ninka waxa uu dhahay yaa bushraaya bishaaradeydii alla bishaaro saas waay macna marka hadda nidahan waa majaas waay hada awaanuki fahduri waay bishaaradii waqtigeedii la jooga iska soo xaadir bishaaray yaa bushraaya bishaaradeydii ayuu dhahay alla bishaaro ayuu dhahay wuxuu dejinaya markaas manzilata al-aaqil ayuu dejinaya bishaaradii uu dejinaya hada midkaanu ayuu dhahay gulaamun ayuu dhahay waa wiil ayuu dhahay alla ilaahay bishaarada macnaha ileen waxa waaye dadka waagi hore qofkii meel saas oo kale laga helo waa la adoonsan jiray oo waa la wada jiray waana la gada jiray marka waxa uu dhahay hada midkaanu gulaamun gulaam waay wiil waay hada tankiirkan oo hada gulaamun uu dhahay waa li tacdiima leeyri
هذا الغلام ما أوصنهن مركا وهوينين واي محايل النبي يوسف لأنه كان عليه السلام نبي الله يوسف نبي قال لنا حديث كور كيس آته وهو حسن الوجه وجه يسمى قروح بدنيه تمن كيس قروح بدنيهن إن دواوين وهي لحم العينين أبور كيس أو سميه مذهب كيس أو عدي عسان وياهي دمن كيس أي أدقيهن هي حبنهيس علوشيس أيرتهي صغير صرة حدنتيس أيرته مركي وحواي أو دوشة كقسلنه نور أيا مركا ساقسل كيس كسوب حاي مركو هذا دولشيس أما الكيس وحواي نورا كسوب حاي ساس دراد هذا هدي لي يرادوا كتير دوناه الدون كسيد نبغى نشيع عليه الصلاة والسلام خلائق ذا قروح ذا لسيا نص كذا لسيا لير لكن ساس بركي لي يرادوا رسول كان عليه الصلاة والسلام كم قرحانين قروحنا كم دمينا لير وهذا يوسف وحال لسيا شطر الحسن سيد حديث صحيح وهاي قروح ذا نص كذا لسيا رسول كان نوع حال لسيا حسن دمانتي سو كامل هالسيا ساتر مركي واتودا إمام البوصيري منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم نبي وحو كان زهاي والرسول كانوا إن قروح ذا للو ذاك سيد أو قروح ذا wax asaga lamida la arko quruxda meesha ugu sareysane wax la qaybsan kara ma jiraan oo dhahay fajawharul husni fihi ghayr munqasim laakiin markii sidaas la yiraahdo rasuulkeena naaga kuma fidnoobin sida hadda ku tay doona nabi yuusuf quruxdiisa naaga ku fidnoobay waxa la leeyahay oo lagu jawaabaya jamaalka rasuulkeena kaleey salaam ilaahay wuxuu ku qariyay jalaalkiisa ilaahay jalaalkiisa ku qariyay oo si fiican loo ma arki karin rasuulka waxay ka dhigantaa qoraxda oo kale qoraxda hadda waxa way ciduma awoodo inay isha ina ku adkayso oo isha ku fiiriso ay fikirto ma awooda leeyri isha haday ku sii qabanayso ishay ka soo celaysa marka hadda nabiga kaleeysa rasuulkeena quruxdiisa iyo marka shamaa'ishiisa shariifada aheeday waxa kaliya soo naqliyay siqaaru saxaabada dadka yar yar ka ahay oo dhalinyarada yar ka ahay sida Xasan iyo Xuseen iyo Abdullah ibn Umar iyo rakalentood way kubaaru saxaaba nabiga ma fiiri karin maxaa yeelay jalaalka rasuulka kiisa ayaa qalbigooda ku qumay markaasuu u diiday inuu nabiga kaleey salaam ay sifeeyaan iyo hayba ay ka haybeysaan rasuulka kaleey salaam laakiin jamaalka nabi yuusuf dhaahiro wahay banaanku u ilaaliyay jalaalka ilaahayna lagu ma qarin waa sida dayaxo kale dayaxada qofka markay fiiriso waa sifeey kartaa marka arin sidaas oo loo baahan yahay in laga fikiro arintaas ayaa meesha ku jirta markay arintaas u dhacday waa dhahay hada gulaam midkaan waa wiil ayuu dhahay amba waa adoon ilaan adoon uu ka dhiga rabaa waxa marka hadda la sheegaa marka ninkaas saas dhahay nabiyullaahi yuusuf walaalihiis ceelka meel u dhaway joogeenaa leeyay ayagoo bal fiiraaya waxa markaas lagu sameeyo yuusuf lagu sameeyo way ogaadeena leeyay markii ceelkii in laga soo bixiyay markaas ay u yimaadeen ayagoo kala ordaayay markaasuu dhahay ilaahi wa asruhu way qariyeen hada lama irtaan laba meelood u kala celi doona wa asruhu way qariyeen maartay ikhwatu yuusuf oo ilaahi macnaha waxa laga wadaa amarkiisay qariyeen oo wuxuu yahay ma aysan sheegin soo qadara markaas jaacilihi ayagoo ka yeelaya bilaacatan badeeca ka yeelaya way qariyeen wuxuu yahay ma aysan sheegin badeecay hadana ka dhigteen mesela waxay yiraahdeen hada abdun aabiqun ninkaanu adoon anaga naga soo dhumayo ahay adoon naga soo dhuuntay ceelkaanu ku dhacay maaragtaya naga gatay yiraahdeen ceelkaanu nooga dhacay ninkaan waxa nabi yuusuf asna waa Musa leeyri maxaa yeelay wuxuu ka baqaya inay dilaan oo arintaas ka faa'iido ay dilaanba nimanka hadda niman tira badan waayo 12 nin oo hadana xoog badan waayo arkaas uu shibo iska dhahalay waa markii lamiirka loo celiyo maaragtaya ikhwatu yuusuf loo celiyo way gateen marka wallahu allahu ilaahi caliimun alayku cilmi la weeye bima yacmaluuna waxay amal falayaan waxa kale loo celi karaa dadka sayaaradii laftirkooda ayaa markay ceelkii kala baxeen way sii wateen masaray ka iibsadeen marka waxa la leeyahay wa asruhu way siraysteen way qarsadeen nimankii sayaarada ahay oo safareyda ahay jaacilihi xaalihiin kuwa ka yeelay bilaacatan badeeco oo labada arimood waa jirtaa nimankan hadda hadii ikhwatu yuusuf leeyahay ayaga iibsaday nimankii safarka ay ka gateen safarkiina ina sii kaxaysay ayuu masar ka gatay labadaas beeco markaas oo galay hadii la yiraahdo lamiirkan loo celiyo sayaaradana ayagii baa markaas qarsaday masaray ka iibsadeen kulliba asaga oo
ولا إبسنا يا ساس ويا مركز والله الله إلهي عليم عليه كعلم لواي ربي سبحانه وتعالى بما يعملون هي عمل فليان معناه وهي سمينا إن عمل ظاهر كيس فول حموية لكن باطن كيس هوس حسن ويهو ناسين معايا إلى أسرار إلهي أيام ماشى أسكرها تميس هي فوائد ووين وأن لسوكو بكرين وعنا وايا تعليم إلهي حقي سكإيمان يصور كانوا هو إلهي أدو من كيس أو تعليمنا أيو أدو منك وحالو تعليمنا يا إن إلهي أرنتوض أبان أو وحكس إلهي وهو سمان مركا هذا قف كسته إن أرين كسته دي إلهي سبحانه وتعالى الله تلا صارته إن قول لك جارا إن لأجادال الخبا ما ملكنا إلهي سبحانه وتعالى وهايو أرنتو مركا سيدي أحفال حنتاي إن المركز مال والأساس كسيس عنيني إلهي يقول وشروه ويشرايستين شراها معنى البيع على قدقايا شروه معنى البيع ومركز كما حديث قرآن كي حديث أدوها الله مير كان لبدي يو كلواي وشروه ويشرايستين وقال إلهي ويقتين ودا إخوة يوسف هو نبي يوسف ويقتين ونمان كيف قتين ما يكون قتين بسمان سمان لعق بخس أو ناقصة لا يرو إبر كذا هيكون قتين دراهم كبدل درهم يلا يكون قتين معدودة أول تري لا يرو رقيس إلى أي يقول جد وين وحواي إن ماشى إن كان أو ضعفه وشروه هو شرايسين أو ضحي أما وحالة قديه كرا نمنك وحالك شرايس مركز أو سيارة ضحي بسمان سمان العق بخس أو ناقصة دراهم الدرهم يلا يكون شرايسين معدودة أول تري لبعتني هذي لبعتني لبي هذي وأكبرنا ذا يلي العقير وكانوا وحي هذين إلى إخوة يوسف فيه يوسف من الزاهدين كوا كجيستي هذين العقير كلا بحين ماشي وقتجين وكانوا وحي هذين إلهي فيه يوسف من الزاهدين كوا كجيست سيارة ذي مركز نمانك سفر كهاي وحي لي ماذا مصري كانين مركزا وحا كئيب سدي فباعه الذي اشتراه ب20 دينارا وحا كذا مركا نينكي مركا هore iibsado safareydahay ayaa wuxuu ku giday 20 diinaar oo kala bax dirhamka iyo diinaarka weyn oo waxa waaye markaas waqtiga hadda la yaqiinay lacagtaas 12 dirham ayaa hal diinaar lagu sarifi jiray iyo kaba iyo walaxa naf leh iyo laba mara laga siistay ilaa nimankan safarka niman reer baadiyahay iska ahayeen wax yar waxay arkaan iska gadanayeen nabi yusuf waa la iibsanaa bal u fiiri rasuulkaas ilaahay la iibsanayo iyo maqaamkiisa wax u daba mari doono cid ka soo leeyahay qofkan waa xaqiran tahay ama waxba ma ahan haday ilaahay subhanahu wa ta'ala xirigiisa qabsato oo rabbul izza markaas ay ilaahay maqaamka ilaahay subhanahu wa ta'ala oo siiyay ay ogaato oo maaratay taqwada iyo daacada ilaahay ay ku dadaasho waxa ay maahaysa in markaas waxa weeye ilaahay kor u qaado wixii sidaas yeelayna inay hoos tagaana ima karaysa sida hadda laga baranayo quraanka iyo xadiista marka Allah wuxuu dhahay wakaanu waxay ahaadeen fihi yusuf min az-zaahidiina kuwa ka jeesta marka waxa weeye nabi yusuf waxa la geeyay masara laga iibsaday hadda waxa weeye qisada waxaanu ku sii sheegi doonaa qisada dhabaab noo socotay heerarka uu maraayo masar markii laga iibsaday ninkii iibsado la dhihi jiray qadfiir oo markaasi nin ahaay markaasi waxa waaye wasiir ahaayo ninka masar boqorka haysan ninka ku xiga ahaay ayaa markaa iibsaday arimihii marka siday halkaas ka bilowdeen iyo wixii u daba mari doon nabiyullah yusuf casharadeen aan soo socdo ayaan ku qaadanaynaa asay yeeshada casharkeen inta suuqa eegay wallahu subhanahu wa ta'ala